waxaan isku dayay mawduuca cabdilqaadir doortay inaan wixii alla iga gaadhsiiyo ama aan ka awoodo inaan ka tilmaamo oo ku saabsiisan qasri اlأmal aw اlisticdaadu liyowmi الraxiil rajada adduunka oo lasoo gaabiyo ama se diyaargarow qofka muslimka ahi uu diyaargaroobo maalinta aakhiro waxaa aan u baahannahay runtii xaqaa'iq dunidan taalla inaynu si fiican u fahamno ugu horrayn xaqiiqada qofka bini aadamka ah adduunkan waa daaru mamar waa meel socod lagu marayo qofka bini aadamka ahi muddo kooban buu joogayaa mana aha meel nagaadiya sida ogeed buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka bukhaari ku yaalla waxa uu ku tilmaamaya xaqiiqada qofka insaanka ah waxau nebigu ku tilmaamay khad buu jeexay square yar buu sameeyey markuu square afargeesood yar sameeyey ayuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xariijin ka dhex saaray xariijinta intii squareka dhexdeeda ku jirtay buu xariiqo yaryar dhinacyadeeda ka jeexay dabeetna nebigu wuxuu idhi kani waa bini aadamkii ajashiisu sidan bay ugu wareegsan tahay yacnii laabud inuu dhimanayo geeridu dhan walba way ka xigtaa oo wuu geeriyoon doonaa xariiqdan dheera arkaysaanee ka baxday dhaafsisan bogoskiira ayuu nebigu sawiray dabadda uga baxdayna waa amalkiisa rajo iyo yadidiila uu qofka bini aadamka qabo iyo balaankiisa adduuniya waxa uu ka fekerayo xariijimahan yaryare hareeraha ka xigana waa mashaakil اdunya acraadiha waa dhibaatada adduun oo haddaad tan ka baxdo tan baa ku haleelaysa haddaad ka maqacdo tan baa ku haleelaysa si kale haddaynu u tilmaamno waxa weyaan dunidan waxaa laynoo keenay in layna itixaamoba waxaynu u joognaa liyabluwakum ayukum axsanu camala in layna itixaamo waxay culammadu yidhaahdaan meel laysku itixaamana waa qaabkii ugu fiicnaa qaab bini aadam imtixaan loo geliyo waa the best bay yidhaahdaan qofka bini aadamkaa loo itixaamo haddaba insaanku adduunka kan amalkan tirada badan iyo rajadan tirada badan la weysa siiyo waxay culammadu yidhahdaan laba sababood baa inta badan keena oo ah aljahlu wa xubu dunya idan xaqiiqada koowaad waa inaynu adduunka u joogno in layna itixaamo xaqiiqada labaad aynu wada rumaysannayna waxa weeyaan geeri in dadku dhammaantii geeriyoon doono waa xaqiiqo gaal iyo muslimba la qirsan yahay waxaa kugu filan adiga dadkii aad ku abtirsanaysay ama ku dhalay waa kaa horeeya mostly adiguna yaroon dawey adna waa sallaankaad saaran tahay waad daba socotaa si awgeed baa ilaahay subxaanaه wa tacaala nebigiisii wuxuu ku leeyay innaka mayitun wa innahu mayituun baa ilaahay yidhi adigu mid geeriyoonaya baa tahay mayit baa tahay baa ilaahay ku tilmaamay nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam wa innahum mayituun iyaguna waa geeriyoonayaan baa ilaahay yidhi kullu man calayhaa faan dunida waxa kor saaran oo dhammi waa dhammaanayaan baa ilaahay ku tilmaamaya subxaanaه wa tacaala wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in midta fahum اlkhaaliduun adiga hortaabaa ilaahay leeyahay bini aadam aan waaris siinay ma jiro gaalada waxay odhan jireen wuu dhiman doonaa raybal manuun bayn la sugaynaa waa maalmuu inugu qaylinaya dani wilivas waa geeriyoon doona ilaahay wuxuu ku tilmaamay subxaanaه wa tacaala adiga hortaaba bini aadam waaray ma jiro afa in midta fahum اlkhaaliduun baa ilahay yidhi oo adugu haddaad dhimato ma yagaa kaa hadhaya ma yagaa waaraya baa ilahay leeyay subxaanaه wa tacaala idan adduunkan iyo dadka saaran oo dhammi xaqiiqada labaad aynu ognay waxa weeye in la wada geeriyoon doono
xaqiiqada saddexaad aan ognahayna waxa weeyaan daari lmamar waddadan safarka markaynu dhaafno inaynu ilaahay la kulmi doonno xisaabna waajihi doono ilaahay intaad la kulanto subxaanaه wa tacaala liqaaء allah iyo xisaab iyo janniya naari inay ka dambeeyaan si awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum ثuma turadduuna ilىa caalimi اlغaybi wالشhahaadة fayunabi'ukum bima kuntum tacmaluun geeridanaa ka carcararaysaan baa ilaahay leeyahy cid walba inaga midaba geerida diyaaru maaha waa ka baxsanaynaa marka wadnuu ku xanuuna madaxu ku xanuuna dhakhtarmee iyo yaa wax tabiiba iyo yaa nafta igu qabtay weeyaan waxaynu la wada ordaynaa cidina ma rabto inay hore uga baxdo ilaahay wuxuu leeyahay geeridanaa ka ordaysaan fa innahu mulaaqiikum waa idinla kulmaysaa mahma aad cararto waa kula kulmaysaa ثuma turadduuna ilىa caalimi اlغaybi wالشhahaadة dabeetana waxaa laydiin celinayaa baa alla leeyahy subxaanaه wa tacaala rabbi og waxa muuqda iyo waxa qarsoonba waxaad qarsatay waxaad ku fakertay waxaad keligaa samaysay wax kasta oo qarsoon caalimi اlغaybi wالشhahaadة ilaahu wax walba og baa u tegaysaa kadibna fayunabi'ukum bima kuntum tacmaluun baa ilaahay yidhi wuxuu idinka warramayaa markaa wixii aad samayn jirteen oo dhan waa xaqiiqada saddexaad marka dunidan inaynu imtixaan u joognaa waa kow amalkeennaasi ha iska dheeraado laba waa inaynu geeriyoonayno qof waliba geeri la kulmaya saddex waxaynu leenahay waa inaynu ilaahay la kulmayno subxaanahu wa tacaala oo xisaab iyo janno iyo naari dambayso kullu nafsin daa'iqatu اlmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljanna faqad faaz wama alxayaaةu اddunya ilaa mataacu اlguruur naf waliba waa go'aysaa baa ilaahay yidhi waxaana laydiin dhammaystiri doonaa maalinta qiyaame wixii aad shaqaysateen adduunka waa laga yaabaa camal saalixa intaad samayso haddana inaad kadeedna iskala kulanto waa dhacdaa adigoo acmaal wanaagsan samaynaya in imtixaanku kugu sii kordho ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala waxaad shaqaysatay wax kasta ha ahaatee kaa lumi maysa baa ilaahay leeyahy shaqadaada oo dhammaystiran goobta lagu helaya adduunka maaha innamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama naf waliba wixii ay galbatay ama ay shaqaysatay maalinta aakhiraba ilaahay le ayuu u oofinaya u dhammaystiraya haddaba maalintaas baa ilaahay yidhi faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljannata faqad faaz maalintaa ninkaa naar laga fogeeyo ee janno la geeya warkaasunbaa liibaanay baa ilaahay yidhi qur-aanka ereyga fawz iyo faa'iziin iyo fawz اlkabiir iyo fawz اlcadiim iyo fawz اlmubiin baa ku soo aroray intaba aakhiray ku saabsan wax adduunkoo fawz la yidhaha qur-aanku ma qorin ereyga fawz iyo faa'iz iyo faa'iziin iyo fawz اlcadiim iyo dalika alfawz اlkabiir alfawz اlmubiin intaba qur-aanka waa ku soo aroortay xawaalay 16 jeer bay fawz اlcadiimku ku soo arooray iyo kabiirku intaba aakhira ilaahay kaga warramaya yacni adduunku kaannamaa wax weyn oo la tilmaamo ma aanu ahayn ama guulayso ama guul darrayso it's matter of days